Daawade waxaan kula wadaagi doonaa xildhibaan Barkad Batuun. Gabar uu ureeyay ayaa aabaheeda soo hadlay. Aabaheeda oo afka furtay xildhibaan Barkad Batuun gabadha uu ureeyay inuu sifa sharci darro ah ku qabo. Gabadhaas oo wariyad ahayd oo gurigiisa kula nooleed. Gabadhaas uu qabo xildhibaanka oo la sheegi jiray inuunan salaada tukanaynin, in salaada laga kari waayay oonan soomi jirin. Gabadha uu guriga ku haastay uu ku qabay ayaa waxay ahayd inuusan gabadha aroosin uu aabaheedana ka doonan. Aabaheed oo afka furtay oo sheegay in uusan u qalmin xildhibaan Barkad Batuun gabadhiisa oo hadda uu xaamilo oona ureeyay cunuga oo la sheegay in uu hadda uu caloosha u geliyay inuusan asiga oonan qabin. Uu gabadha xildhibaanka ka aqli badiyay saas uu guri ula degay. Xildhibaanka oo aabaheeda uu gabadha ureeyay afka furtay aabaheeda oo sheegay in uu gabadha kaba soo doonanin xildhibaanka oo u imaanin ayaa wuxuu ka soo maray gabadha dhankeeda ayuu ka aqli badiyay. Saaxiibayaal, waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal aad kaaga yaabinaya gabadha oo aabaheeda afka furtay oo sheegay xildhibaanka in uu aad ugu careysan yahay maadaama uu gabartiisa ka soo doonin, gaar ahaan gabadhiisana hadda ureeyay cunugan wax lagu tilmaamo la la'san yahay. Subxaanallah. Bal daawade muuqaalka like-ta noo badiya. Soomaalinimo haddii jirto muuqaalka like-ta noo kordhiya. Fadlan si codsin waxaa kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe dhaatid, gambaleelkana u furatid. Waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal gabadha aabaheed oo soo duubay xildhibaanka uu aad ugu dacwoonayo. Uu sheegay in uu aad uga careysan yahay, gaar ahaan gabadhiisa uu caloosha u buuxiyay xildhibaan Barkad Batuun, gaar ahaan Somaliland. Meesha ayay aad u xamaasad aad ugu culus, dagaal culus hadda uu ka bilaawday xildhibaankii aabaha oo u dhexeeyo. Aabaha oo sheegay inuunan famil ahaan inuu reerka u imaaday oo dhahay gabadhiina rabaa. Gabadha oo aabaheeda sheegay intaasoo sano inuu kusoo dadaalayay, gabadha oo wariye ahayd ayuu ka aqal badiyay xildhibaanka markuu ka aqal badiyayna gabadha caloosha u buuxiyay. Sidaas ayaa gabadha hadda uu ku qabsaday xildhibaanka. Aabaheed oo hadda social media ka hadlaya ayaa wuxuu dhahay xildhibaanka gabadheeda ayuu iga haystaa. Fadlan daawade muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa, wixii raayana commentiga. Daawade waa naga codsi, muuqaalka like-ta noo saar. Soo dhawow daawade. waxa weeyaan ninkaa odagii inantaydii sifo sharci oo kula maqan yahay uu kula maqan yahay horta ma jirto. annaga xagga iyaga oo sharciyeysantahay sifo sharci darraa waana ku haysta. Haddaad muuqaalka soo daabatay daawade waa naga codsi, fadlan janaalka oo noo qurxi, subscribe noo dheh, gambaleelkana u furo. Bal asxaabay, waa intaas oo kaliya codsigeena. Muuqaalkan muuqaalka xiga ayaa ku kulmi doonaa.